mudanayaal waxaan halkan idinku soo gudbinaynaa qabiil qoraalka xeerka nidaamka xukuumadda oo golaha wasiirada Jamhuuriyadda Soomaaliya ku ansixiyeen fadhigii 132 ee 0304/2014 hadda mudanayaal waxaan idin rajaynaynaa inaad waafajisaan shuruucda dalka idinku ka gudanaya waajibaadkiina dastuuriga Allah mahadle Axmed Maxamed Silaayo nidaamka xukuumadda ee madaxweynuhu idin soo gudbiyay anigoo ixtiraamaya wada shaqaynta ka dhaxaysa hay'adaha xukuumadda iyo baarlamaanka isla markaana gudanaya waajibaadka dastuuriga ah waxaan tilmaanayaa sharaxaad kooban ka bixinaya ujeedada xeerka mabaadi'da guud ee baahida uu ku saleysan yahay xeerka hortiina yaala madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo fulinaya xilkiisa dastuuriga ah wuxuu xooga saaray horumarinta dalka iyo hagaajinta nidaamka dawladnimo waxaanay tahay baahida keentay xeerkani in la hubiyo habsami u socodka maamul isla markaana la xaqiijiyo in xilalka la isu raaciyay hab loo maamuli karo waxaanu diyaarinay xeerka nidaamka xukuumadda oo xadidaya xilka waajibaadka awoodaha shaqada hay'adaha dhexe ee fulinta isla markaana maamulaya laamaha dhexe ee xukuumadda intaa kadib waxaan idin ka codsanaynaa in xeerarka idin la yaala aan idin soo gudbinay ee xeerkan ka mid yahay xeerka aadka u muhiimka ah ee diiwaangelinta muwaadiniinta madaniga iyo codbixiyayaasha aad ka gudataan waajibaadkiina maadaama ay jirto baahi daruuri oo loo qabo waxaan dareemaynaa maalin walba xildhibaano ku tiraaba ama dad siyaasiyiin oo ku tiraaba doorashooyinka dib loo dhigaya xeerkiina idin la yaala xeerka idin la yaala ee dhameystirkiisa iyo qabiyatirkiisu waa waajibaad dastuuri ay idinku leedihiin waxaan idin ka codsanaynaa ina noo soo gudbisaan kana gudataan waajibaadkiina